waxaana wanaagsan daawadayaal xaaladda siyaasadda ee dalka waji xun ayay yeelanaysaa sida la saadaalinayo haddii dhaqdhaqaaqyo ay wado dawladda Soomaaliya wax laga bedeli waayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble bahdil xoogan ayuu kala kulmay madaxweynihii uu dartiisa kula dagaalay madaxweynihiisii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo mucaarad ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed Xuseen Rooble maanta waxaa loo diiday baasaboorkii diblomaasiga ahaa Maxamed Xuseen Rooble waxaa loo sheegay inuu shacab yahay oo wadada uu ku qulqulo shalay Farmaajo markii uu la dagaashanay Maxamed Xuseen Rooble la taliyaashiisa gaarka waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hadda talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud haddaba bahdilkan ku dhacay maxaa u sabab Maxamed Xuseen Rooble saddex arin oo aadan ogeyn ayaan rabaa inaan ka dabageeyo si degan muuqaalkan u daabo soo dhawo ayaan ku leeyahay waa maalmo khamiis ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay daawadayaal 20ka bisha Febraayo 2025 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena siyaasiyiin badan oo mucaarad ah caga badan kuma taagna kuwa gudaha wadanka jooga markaan ka bilowno waxay u badan tahay in la weerari doono dawladda Soomaaliya ay doonayso barnaamij hubka dhigis ah inay la timaado kaasi oo qasab ka dhigaya qof kasta oo mucaarada 4AK ama 4AK ka badan inuusan haysan karin mucaaradka magaalada Muqdisho jooga oo xaniiyahooda saaran qofka ugu yar ayaa haysta ugu yaraan 20 tekniko oo gawaarida dagaalka wuxuu heli karaa ugu yaraan 200 oo wiil oo baabuurtaas la saari karo dadka qaar waxay haystaan lacag aad u tiro badan oo hub cusub ay ku iibsan karaan sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo waliba xildhibaan Jaafar xildhibaan Daahir Amiin Jeesow waa ragga madaxtaaga ah ee xilligan ka shaqeynaya in dawladda Soomaaliya ay la dagaalamaan af iyo adinba hadii la isugu geeyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay qaaday tallaabo aad uga yaabisay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed saacadii ugu dambeeyay kadib markii Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare ka noqday markii meesha uu ka baxay Xasan Cali Khayre ayaa la warinayaa in loo diiday baasaboorka diblomaasiga oo ay ku safraan guud ahaanba dadka diblomaasiyiinta ah ee hore xilalka u soo qabtay dadka hadda xilalka hayaba caadiyan xitaa baasaboorradan waxa ku safra dadka diblomaasiyiinta ah ee dawladda u shaqeeya ee shaqaalaha hoose ee dawladda ah waa loo ogol yahay qaarkood inkastoo shaqaalaha dawladda oo dhan aysan wadaysan hadana dadka qaar way helaan oo waa la siyaa waana shaqaale hoosaad ku shaqeeya dhowr boqol oo dollar ama ba ka yar ku shaqeeya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu tagay safaaradda magaalada Nairobi ee dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu dalbaday in baasaboorkiisa oo dhacaya loo cusboonaysiiyo Maxamed Xuseen Rooble waxa loo sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda warqad inuu ka helo ay tahay kadib loo cusboonaysiin doono wasaaradda arrimaha dibadda waxa fadhiya oo awood ku leh Cali Balcad oo ah nin aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya dadka xitaa dawladda dhaliilsan ninkan annaga ma hubna laakiin waxay yiraahdaan waa nin jaajuus ah waa nin nooca ah waa nin dawladda u shaqeeya waa nin xogta dawladda gada laakiin anaga cadeyntaas ma hayno laakiin waxyaabaha lagu dhaliilo ay qayb ka tahay Cali Balcad markii fariinta la gaarsiiyay si cad ayuu u diiday in Maxamed Xuseen Rooble baasaboor diblomaasi loo cusboonaysiiyo isagoo u sheegay in haddii dan ay u tahay baasaboorka Soomaaliga caadiga uu qaato haddii kale baasaboorka uu kala yimid Sweden ama wadamadan kale ee uu ku soo noolaa uu horay u sii qaato ka oo ku safri karo Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku sii jeedaa dalka Koonfur Afrika oo casuumaad uu ka helay jaaliyadda wadanka Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Rooble wuxuu wadaa horta olole doorasho midda koowaad haddii aan ku sheego sababta loogu diiday baasaboorka ayaan gudagalaynaa Maxamed Xuseen Rooble 2022 waxay ku heshiiyeen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in habargidir la dhiso 2026 habargidir in maalin kasta qof ay dhistaan inaysan macquul ahayn shalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadkii xabadka u garaacday ee soo dhistay dadka kureerka amaahin ama beesha Abgaal waxay ahaayeen Mahad Salaad Maxamed Xuseen Rooble iyo in kale oo lamid ah oo dad Soomaaliyeed ah sida daraadeed waxa muuqata in xitaa uu ku jiray dadkii soo dhisay madaxweynaha Saadax John oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga baxay meesha haddaba daawadayaal midda koowaad waxay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan meel u socon 2026 kana uusan ogoleen inuu isagu qof kale dhiso ama Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne uu ka dhigo ama qof kale madaxweyne uu ka dhigo ilaaha ka dhigi kara laakiin inuu sabab u noqdo tan koowaad waa taa madaxweynaha Soomaaliya meelna uma socdo ama xoog ha ku joogo ama xeelad ha ku joogo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka go'an
inta cumrigiisa ka harsan sida uu qorsheynayo in dalkan uu hogaamiyo dhaqdhaqaaqeedu uu socdaa waad arkaysaan doorashada waxa lagu diyaarinayaa magaalada Muqdisho meelihii doorashada lagu qaban lahaa waa la diyaariyay guddiga doorashada ee madaxweynaha uu sameystayna iyaga shaqeynaya mid labaad beesha habargidir go'aan ay gaareen oo ah inaysan mar dambe wax ka yar madaxweyne aysan ku haminin beesha habargidir waxa ugu dambeysay in dalkan madaxweyne ay ka noqdaan Cabdiqaasim kadib waxay heleen ra'iisul wasaare oo Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne maamul goboleed way haystaan laakiin waxa muuqata in hadda go'aankooda ugu dambeeya iyo kooda bilowga ahba uu yahay inay dhistaan qofka allaale iyo qofka ay u arkaan in muhiim uu yahay Maxamed Xuseen Rooble iyo shakhsiyaad kaleba waxay ka mid yihiin dad habargidir ka soo jeeda oo u taagan 2026 in kursiga ugu sareeya dalka ay ku guuleystaan Maxamed Xuseen Rooble waa nin galgal badan wuxuu gacanta ku hayaa Imaaraadka Carabta heshiis dhow ayuu leeyahay Imaaraadka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud way kala guureen sida daraadeed waxa la leeyahay Rooble wuxuu awood u leeyahay in dhaqaale badan oo uu doorashada ku galo uu si fudud ku heli karo arin saddexaad waxay tahay in sababta loo bahdilayo Maxamed Xuseen Rooble ay tahay in mucaaradka kale ay ku qoos qaataan mucaaradkan kale ee Sheekh Shariif birita marka baasaboorka diblomaasiga uu ka dhaco inaan loo cusboonaysiin doonin oo hadda uu ku sii tashado Cabdiraxmaan Shukuur waa xildhibaan isaga Daahir Amiin Jeeso waa xildhibaan Xasan Cali Khayran isaga markuu baasaboorka diblomaasiga ka dhaco in uusan ku soo tashan in baasaboor la siin doono taas oo ku tusaysa inay tahay mid muujinaysa in dawladda Soomaaliya go'aan ay gaartay dad badan oo nabad iyo nolol ah waxay leeyihiin Maxamed Xuseen Rooble wixii uu ka galabsaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo godobtii siyaasadeed ee uu arkaan inuu ka galay maanta ayuu gudaya maanta ayuu arkayaa sababtoo ah Maxamed Xuseen Rooble Farmaajo wuxuu la dagaalay inuu han siyaasadeed gaaro in han siyaasadeed uu gaaro ayuu la dagaalamay maantana markii ay soo dhawaatay dadiiladiisa kaambeynkiisa iyo howlalihiisa uu bilaabay Maxamed Xuseen Rooble waxa muuqata in dawladda Soomaaliya madaxdeedii ku soo jeesteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynihiisana arintan ay ka sameeyeen in warkan uu yahay war sax ah oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble la bahdilay loona diiday baasaboorkii diblomaasiga ahaa cadeen kale oo sheegaysa ayaan ku tusaya sababtoo ah warbaahinta xidigaha tube warar beena ogomaadan baran itusoo itaabsi ayaa la dhahaa Faad Yaasiin Xaaji Daahir isaga iyo Maxamed Xuseen Rooble meesha isla gaareen waa naqaana lagama sheekeenayo maanta nabad iyo nolol kama tirsana ninkan laakiin qoraalkan ayuu baahiyay madaxweyne Xamse Cabdi Barre wax walba madaxweyne Xamse Cabdi Barre wax walba in uu ku adeeco madaxweynihiisa waan ka filayay laakiin marnaba kama filaynin inuu mas'uulkii uu xafiiska kala wareegay u xurmadareeyo oo u diido warqad uu qarankiisa xaq ugu lahaa waana maamuus ay wada leeyihiin madaxdii qaranka soo wada martay oo idil mudane Xamse Cabdi Barre haddii sidaas foosha xun uu ula dhaqmay ra'iisul wasaarihii uu xilka kala wareegay mudane Maxamed Xuseen Rooble yay tahay cid soo hartay uu mudnaanta siinayo ayuu yiri Faad Yaasiin Xaaji Daahir haddaba daawadayaal lama yaqaano duufaanta ku soo wajahan dadka kale mucaaradka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aan ayuu gaaray dadka mucaaradka inuu meel iska saaro go'aankeeda hoostu ka xariiqay dadka gudaha jooga ee mucaaradka iska daayaga hubka dhigis in loola dhaqmo si kale waa macquul dadka dibadda jira oo Farmaajo uu ka mid yahay haddii ay su'aalaan iyaguna waxa la soo bandhigi doonaa kiisas badan oo lagu kicin doono Farmaajo kiisaska lagu kicin doono waxa kamid ah Cabdikariin qalbi dhagax dhiibistiisii waxa kamid ah weerarkii madaxdii qaranka waxa kamid ah dilkii Ikraan Tahliil waxa soo dhan waa iyaguna way diyaarsan yihiin oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii dalka uu ku soo laabto iyo haddii dawladda uu dhaleeceeyaba hawshaas iyaduna waa loo diyaariyay Cabdiraxmaan Shukuur Warsame isaga waa xildhibaan Sheekh Shariif waa xildhibaan laakiin xildhibaannimadaasi inaysan u goyn doonin ayaa muuqata in hub ay ku haystaan magaalada Muqdisho ama sida ay doonaan ay ka yeeshaan inkastoo dadka uga hadalka badan Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur iyo Sheekh Shariif iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ay ka mid yihiin oo khayra inta badan uusan ka hadlin media khayra sidoo kale Farmaajo lagu gowraci karaa oo shalay waxaana sameysay isaguna waa la dhihi karaa haddaba daawadayaal wixii ku soo kordha xaaladda soo korortay
ee baasaboorka diblomaasiga ah oo loo diiday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble muuqaaladeena dambe aad kaga bogan doontaan halkan adeedna la soo gaartay waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanideen